جددوا يا شباب عزمكم بالكتاب واقرؤوا آيه. ولا ليال الكستو إن صامرته بسنة ربيع الأول بد باجرة سياسي لو تلاقي محمد هين وحو قبطة وحقوقات مسلمين إنه نهاي مسادير الشرع إنه تعالى سؤال با يا وهنس ويدينه نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى حفلة ما قبصدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما قبطي عمر بن الخطاب ما قبطي عثمان ما قبطي علي ما قبطي معاوية ما قبطي حسين ما قبطي الدولة الأموية وعمر بن عبد العزيز كمديها ما قبطي الدولة العباسية أو كمديها هارون الرشيد رجعنا قرنا ما قبطين وما يوي تاريخ ذي مكانه على نمل لا فادميين أما عبيديين أو قرنجي أفراد يوحي كدم بياها أيا لي مدي سادرادد وين نبرنا شريعة إسلامك وحال أجنهي dadaan salaad tukan oo masaajid gelin waligood jamac lagu arag oo masaajid ku jira waligood aan lagu arag magaalada Hargeysa ku nool waligood aan lagu arag iyagoo jamac ku jira oo muslimiin la tukanaya maalinta qaata durbaanka salaada dad ku tiraadana aan salaadna aqoon la yusalli baray qaarkood wala yasub wayna isweydiina way waxa la yaab leh Nabi Maxamed iyo jacaylkiisa iyo reer galbeed inay fan ka bixiyaan oo fan ay ku bixiyaan oo mashaariicda iyo xafladda mawlidka nabiga lacag lagaga soo qaato iyo nabi maxamed xuskiisi waaris weydiin qof muslima oo hay'ad kamida codsi u qoranaya oo waxaan qabnaa xafladii mawlidka nabiga aan qabanayna mashruucaasaan wadnaa naga caawi waa wax la yaab la weeyay saadaradeed in badan baan halka ka tilmaanay waxaan maray maanta qof jaahil inuu jirin xukunka sharciga ah qofka jaahil oo maanta Hargeysa ku nool diintu waxay ka qabto bid'adnimada iyo diin la'aanta qof aan garanayn ma jiro ha garan marin xaq nabi maxamed ha ku taadiin nabi maxamed xaqiisa aad baan ugu xumaa in la yiraahdo nabi maxamed baa sanadkii maalin la xusaya oo nabiga maalin lagu saleeyaa sanadka dhan maalintaas xuskiisiya oo markaa makarafoon baabuur lagu xiranaya oo meelaha la wareegaya oo xaflada loo qabsanaya aad baan ugu xumahay nabi maxamed oo maalin kasta iyo xilli kasta inaga mudan inaan garab taagnaano diintiisa markaan difaacno war shariicada islaamka la barto war diinta dhaqankeega barto war diinta dhaqankeega barto war yaan leedin ka waramin war hadigii nabi maxamed baanu haynaa oo sahih bukhari baa noo yaala oo sahih muslim baa noo yaala oo sunan abi daawud baa noo yaala oo sunan nasa'i baa noo yaala oo sunan ibn maajah noo yaala oo kutub sunan oo baa noo taala oo taariikhda islaamka aynu haynaa taariikhda islaamka ayaynu haynaa waxay dadka wax aqriya waxana al-bidaaya wa an-nihaaya ya'su aqriya oo ibn kathir leeyahay ibn kathir waa imaamka midda shaafiiciyada kamida imaamka midda shaafiiciyada bal wuxuu ka yiri xilligu tilmaamay aynu aqrino ma jeclaan saa ugu dheeraado amaan uga hadlo laana dadku way ka dareesay wayna garanayaan waxaan marka in badan baan marka aan isku tilmaanay sida daraadeed war qof oo maalkaaga ku bixinin sadaqa maaha dii lagu soo maratay nabi maxamed la xusaya keen sadaqa maaha wadooyinka ku bixi qof oo maalkaaga ku bixin malcaamada ku dhis qof oo maalkaaga ku bixin dadka masaakiinta ah fuqarada ah ee baahan waxay cunaan la si sadaqayso laakiin yaan lagu qaldin oo lagu oranin xafladii nabi maxamed la qalaya yaa la qabanaya oo gool baa la qalaya xoolaha si dhaw lagu weydiin su'aalaha waxa kamida maalka halkaad ka keentay iyo halkaad ku bixisay diinta kamid maaha ma ismaqala meel la kaga ma jirto diinta kamid maaha meel la kaga ma jirto kumana hayno dhaqankii taariikhdii saxaabada iyo muslimiintana kuma hayno Allah aan ka baqno Allah aanu noqon